waxaan halkaa u joogno in bacadka u joogno wax weeyaan wanaag iyo islaax aynu ka shaqeynaa ma doonayno laba qof oo walaala oo Ilaahay isgarab dhigo oo wada dhaliyay oo jaari inay ku wada hadlaan waxaan macna badan sameeyay markaanu eegnay qof walba halka uu doonayay waxay ku kala fog yihiin baa wax aad iskaga yar oo aan dhannayn 10 mitir xaqiiqada marka laga hadla dhulka alla isku haysto dhulka Ilaahay waa dhulkii dawladda waa dhulkii daaqsinta waa dhulkii dadka u dhaxeeyay dhinac marka laga eego sharci maaha dhulkii dawladda inaan dad shiciba inaan ugu garqaadno haddana kulba xaaladda jirta ayaa lagu salaynayaa waxa weeye sida wanaagu ku jiro dadka wada degan heshiiska ku yihiin ayuun bay tahay dawladduna inay taakiidiso oo wanaaga ay dadku jecel yihiin inay u horseedo aad iyo aad baad u mahadsantihiin hawsha kulley inteeda badan gudoomiyaha gobolka Awdal ayaa carabka ku dhifan hadalkana inoo soo xidhi halkan looma kala maqna taliyaashii ciidanka nabadgelyada heer qaybeed iyo heer degmo ee labada gobol maamuladii degmooyinka meeyarkii degmada Gabilow baa naga maqan isagana saakoon wada hadalno waxaad go'aamisay maan ku gaabiraadan ku wakiish waxa dareemaysaa dadku sida ay wax u wada doonayaan wanaag halka aanu maanta marnay macnaha ma aha lahaansho dad inay leeyihiin baan ugu marnay ma waa manaafacaad waa dhulkii danta guud ahay dawladda waa buuraha cidina ma qodanayso laakiin manaafacaadkigeedii ayaanu calaamadaynay maanta halka marka nidaamka iyo sharciga dawladda ay wax ka bedelasho dawladdu iyada u madax banaan waxay ka yeelayso iyo waxay ka go'aaminayso laakiin hawshan maanta aan ugu soo baxnay dadka walaalaha waxaan ku walaalaynay oo ay heshiis ku yihiin halka aynu maanta joognay goobjoog ka nahay ee calaamadaheegina aynu soo dhignay cidda hadal ka keenta tallaabada laga qaadi doono waa tallaabada waa go'aanka aynu halka ku kala tagno ee gudoomiyaha gobolka Awdal ku dhawaaqi doono xabad iyo wixii nabadgelyo darro keenayna iyadna waanu ka hadalno waxa laga yeelayo gudoomiyaha gobolka Awdal baa isagana idin sheegi laakiin aanu waxaan hadalka ku soo koobayaa sida maanta aynu go'aamineen hareeraha aynu ka joogno haddii lagu dhaqmo inaan waxba xumaanayn labada dhan kolba kii kaca wuxuu kooranayaa waa abtiga iyo waa sidiga iyo waa sodogay nin fog sheegaya ma jiro waa xaafad la marmaysa waa qoys markay baasho cayn ka tahay lama sii fogeeyo xumaanana meesha ku jiraan lama keeno ilaahina idin kuma keeno hadalka maanta halka aynu u nimi idinka dartii baanu u gaajoonay idinka dartii baanu u haraadnay idinka dartii baan hawlo badan oo noo yaalay magaalooyinka aanu mas'uuliyadda ka haynay aanu uga nimi oo 100 telefoon ugu soo dhacayaan haddana dadka halka jooga iyo dadka halkan joogeen u nimi maanta isku mid u baati dad isku mid ah baan u arkaynaa waxaan jecelahay go'aanka halkaan ku kala tagno inaad sidii haddii Ilaahay raahdo oo waxa hadal aan ka soo noqon haddii Ilaahay raahdo halkan shaqaaqa yar baa ka dhacday shaqaaqa lama oran karo sanqalka saaseed baa ka dhacday muddo imika ilaa 3 cisho ka hor taasi ayaanu ka ballanay gobolka Awdal inaanu arrintaas u nimaadno xalinteeda oo ku saabsanuun inta uu idinka warbixiyay maayarku waxaan 20 mitir ahayn oo aan beerina ka qodnayn ballina ka qodnayn doo ku yaalana aan jirin adigu bixisa un laba qoys oo isdhalay oo walaalo ah oo dhaliya dhasheeda ay haddana dhibaatadaasi aan inteedaas ka soo qayb galay ay sababtay aad iyo aad baan runtii uga xunnahay kuwan iyo kuwan kale ee la midka abana runtii haddii aynu nahay dadka deegaankan oo aan waxba kala lahayn aad iyo aad baan uga xunnahay intaasi oo aan aad iyo aad canaanteeda u saarayo dadka deegaanka oo idinku dhamaysan kari lahaydeen wax maanta halka yimid wax goboladu ay u yimaadaan iyo maamuladu ma ahayn taasna wax qadarka Ilaahay weeyii sida la idin sheegay waxa yar aan sakaara ka beegsanin oo biyaha xaggaasaan uga rugmadaayay isaguna xaggaas uga rugmadaa waxaan dhaafsiisan aan ahayn ayaa maanta isku hayseen tiina maanta xal baan dhignay kama dambaysa oo muxuu ahaay lagu wada noolaan karo oo aan halkaas
hadal dambe ka iman karin ayaanu dhignay taasi idinkuna inaad ilaalisaan oo qadarisaan baanu jecelahay walaalo ku wada noolaataan muxuu ahaayey dadku berigii hore waa isjeclaan jirayoo raggan maanta wada hadlaya aabayaashood iyo awowaashood ma wada hadli jirine waxaan imika dhibta keenay ayaa isaguna dee mushkilad taagan ah waxaana ilaahay haynaga daweeyo kulley guddoomiyahan u dayn doonaa go'aanka rasmiga ah waqti kulul baynu joognaa waxaanu u nimi mashkilad yar oo marka la eego fudud marka la eego dhaqankeennana culus oo ballaarata waayo bani aadmigu wuxuu fududaystana way u fududaataa oo wuu fahamkeeda iyo xalkeeda wuu garanaya markuu isku cusleeye ee sumuuqisha jirtana way ku cuslaataa nina cadka ninka kale uma jiro oo uma daayo runtii mashkiladii meesha ma taalo oo kumay jirin laakiin wixii dadku uu ka tegi jiray ayaa ka maanta nooli aanu garanayn inuu ka tago dadka halkan aanu weynu markaanu waraysanay waa dad hela waa dad qoys waa dad family ah runta marka la tilmaamo idinna way sugti waa dad family baati idinkaana noo warramay nin waliba ninka kale wuxuu u yahay idinka xogtana siiyey waxa weeyaan dhulka kan waa dhul ilaah waana dhul ummaddu leedahay oo wada leedahay maaha dhul cid la siiyey oo sharci u haysto qof sharci loo siiyey oo la yidhi adaa intaa loo iska leh ma jiro dhulku markay soo gaadha sharci baa loo qaataa hadduu qofku meesha lahaanshaa sheeganayo marba cidda ummadda hogaaminaysa dalka talisa dalka ayaa iska leh dhulka mas-uula waxaa ka ah dhulka marba xukuumadda markaa gacanta ummadda ku haysaa ka hadday noqotay haatan inay degaan idiin noqoto oo degsiima idiin noqoto wuu idinku wada filan yahay haddaad manaafacaadsanaysa waxa weeyaan go'aanku dhulka kani waa dhul daaqsimee maaha dhul beere beeruhuna waa ka suuragalo kuwa ku dhowey waa beero way noqonaya laakiin inta hayntu ka jirtay waa in daaq ah runtii intaa xal baanu ka gaar siday sheegeen rasaabka xogeenkii maayarku cabirka markaanu qiyaasnay waa waxaan 20 mitir dhammayn waxa xaggana biyuhu u shubmaan iyo xaggayga intay u shubmaan la iskaga hay qofba ilaahay wuxuu ka siiyo qofba ilaahay wuxuu uga toro ayaa ka helaysa waanu calaamadina calaamadda aanu calaamadina wataanu u aragno inay sax ku tahay inay xaq ku tahay inay lilaahi ku tahay inay idinku wada filaanayso taasaanan laga soo noqonayn qoraal bay gelaysaa xukuumadda saraanu u gudbinaynaa wasaaradda daakhiligaanu u gudbinaynaa ciidanka nabadgelyadaanu u gudbinaynaa ilaa iyo ishaynteedu madaxweynahaanu u gudbinay sidaa aanu maanta ku go'aaminayna waanu ugu gudbinaynaa waana ahaanaysa meesha waxa ku jira waa laba qodob labada qodob mid waa ka dhulka go'aankiisa saasaanu gaadhay halkaa aanu dhagaxa marinay ee aanu calaamadda marino waanu ku soo celin doonno weliba waxaan ka go'in aanu marinayno ayaa u noqonaya soodin labada daaqsimood ee xoolu u daaqaya degsiimo labada dhinacna kama ogolin iminka intaa ku degsiimo ku amooyaane dhinac inay degsiimo ka dhigato oo istiraha ku soo guur kama ogolin oo rasmiyeyso mid walba inta loo soo jiro waa la garanaya dhulku saasaanu ku go'aamin waxaa timi rasaas baa la isku ridaa mar maaha laba maaha saddex maaha in badan bay dhacdo maaha wax loo dulqaadanaa amniga qaranka ayay waxyeello ku tahay amniga ummadda ayay waxyeello ku tahay amniga shacabka ayay waxyeello ku tahay in cid ay rasaas ku riddo runtii waa crime waa dembi culus waa dil haddaanu u dhiman iyo haddaanay ku dhicin mar hadduu isku dayo ku riday dil bay ka dhigan tahay nin qof dilay bay ka dhigan tahay qaadan mayno idinkana siisan mayno labadiina geesood midday ka timiba midna ka siisan mayno dibna uma ogolin haddaanay hore u dhicin in laydinku xidhxidho maanta wixii ka bilaabma madheeraa la isugu dhaadhicinaya
qofkii ay ku cadaato ee gala wallahi laga saamaxi maayo xaqiiqtii wixii imika dhacayna baaristeeda waxa iska leh ciidamada amniga ee ay hogaaminayaan taliyayaasha baaristeeda waan soo kaxaynay saaka taliyay baarista way soo kaxayeen qolada gabiga sidaas leeyahay in goobta lagu baaraabay laakiin iyaga maxalkooda u deynayna oo goobtana xogtana urursanay waxaanu ku soo gunaanadii hadalka war cidina idin kala rari mayso dad ehelo wada dhashay baati dad isu yimi imika ma tiidin dad 12 awow iyo 15 awow wada abti iyo ilmaabti ahaabati ilaahba isu keen dooray idinku ismaydan dooran cidina idin kala rari mayso dib u fakara ninkayna abtigi cunaayo yaad qoys u tahay yaad bariinaysa ninka abtigi dilaayo yaad qoys u noqonaysa yaad bariinaysa waa been ninka yidhaa reer alas baan bariinaya in reer xareed dilaya waa been ninka reer xareed dilaya reer maxamuud been buu sheegaya inuu reer xareed bariinayo warkaad wax sutii waa ka eedada dhashay waa ka abtigaa dhalay waa ka seediga u tahay waa ka inantiisa guursatay niyadan ka xasho iska xashoonay niyaan dhaqankii asarka ah niyadu ka lumay idinka dadku wali way isku tixgeliyaan dadku bulshadu Soomaaliyeed ee aynu wadano aynu la noolaa way leeyihiin oo way isku tixgeliyaan ninkaas hadlay kaas waa adeerkay buu hadlay kaasna waa abtigay buu hadlay labadaba waan ku dulmanahay buu waan ku dhaxdhintay buu xanuun bay haya xanuunkana labadooda ay ugu beeray warmeeyda kelmadda qiimaheeda iyo xanuunka ay leedahay miisaanka ay leedahay aydan dareemin inaad dhadhisataan baa oo aad qaadataan waxaan hadalka ku soo gunaanadiya wardad ilaahay iska dhaliyay baati oo aan kala tagay war isu naxariista oo waxa maanta haddii dadka bini'aadmiga la keeno ilaah baan ku dhaartay dad badan baa yaabi lahaa dhulka ay ku yaraaday anu saan arko dhulkii baa idinka ku soo yaraaday dhul ballaaran dhul buu jiray Soomaaliland dhulku kuma yaree waanu idin rari haddii saad noqotaa oo dhulku sidaa noqdo waa la idin rari laakiin la isku hayo ana idin geey Soomaad kale cidina isku hayso burcadu la isku hayo laakiin farsamooyin kale ayaa la isku qabtaa runtii laakiin ma haduu waxa la isku qabtaa xasha lillah way ka caagan tahay in burcadu la isku qabto haddaan anugu daanta u dhaqaaqo isra hadaa xoolahayga oo dhan cid celinaysa ma jirto oo ilaahay barwaaqiyo roob dhigo qof celinaya ma jiro waa dhaqanka Soomaaliga lahaa wana kii asalka walina wuu yaala nin kale burca way ay taala wax burca si kale oo bala siyaasad iyo waxa hadda tirahaan waxba ku yaro lug yeelana ma tactuun mar dambe halada aanaysa waxaan leeyahay walaalayaal idin isu tura hadalku meeshu ku jira waxa weeyaan war isu tura oo isdhaqla dad is abaatiini meel looga noqdaa ma jirto dad is abaatiini isu tura oo isdhaqda meel kala guuri maysaa kala tagi maysaa maxamed uu noqon weydan marka waxaan leeyahay ilaahay ha idin garadsiiyo ayaa ku soo gunaanay ilaahay ha idin garadsiiyo oo ay iskiintu soo wanaagiin iyo waxa isu tiin intaas idin ku ducaynaya assalamu alaykum